halkan waa saldhigga Turkiga ee ku yaala Muqdisho ee loogu talagalay in ciidamada Soomaaliya lagu tababaro. Saldhigga waxaa la furay maanta oo ay ka soo qayb galeen taliyaha ciidanka Turkiga, sidoo kale waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya. saldhiggan qiyaas ahaan waxa uu qaadaa markiiba oo lagu tababari karaa ilaa 1500 oo askari, taa oo la aaminsan yahay in ay ka dhigayso halka ugu weyn ciidamo Soomaali ah iminka lagu tababari karo gudaha dalka. waxaanu ka warqabnaa in dhismaha saldhiggan iyo hawshiisa ay socotay muddadii 2 sano ahayd ee la soo dhaafay. kulligood sida uu og yahay safiirka Turkigu ay yihiin dad Soomaaliyeed oo ka kala yimid dhulka Soomaaliyeed oo dhan, inay yihiin ciidan Soomaaliyeed oo ka kala yimid inta u dhaxaysa Lowcadde iyo Raskamboni, inay tahay tallaabo cusub oo muujinaysa in dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay diyaar u yihiin inay ka adkaadaan argagixisada haddii la yiraahdo. Turkidu waxa ay wax badan ka caawinayeen Soomaaliya dhanka kaabista miisaaniyadda, sidoo kale waxa ay diblomaasiyadda marka laga hadlayo Soomaaliya ay u soo jiideen indhaha dunida markii 2011 abaarta ay Soomaaliya ka jirtay oo madaxweynaha iminka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo xilliga ahaa ra'iisul wasaaraha Turkiga uu Soomaaliya booqasho ku yimid. saldhiggan waxa uu kaga duwan yahay saldhigyada kale. tababarayaasha gabi ahaan waxa ay noqon doonaan ciidan Turki ah oo si gooni ah loogu sameeyay ama loogu diyaariyay in ay ciidamada Soomaalida halkan ku tababaraan. ciidamadan hadda ay tababarayaan wixii ay siin lahaayeen ay ugu talagaleen waa keeneen, hadda diyaar waay. waxaan la soconaa dad badan aan caawiyo wax noo tababaro, laakiin wuxuu ku leeyahay markii aan tababaro adiga wax u keenso, aniga warshad ma lihi. وقتين قاعد ومهل كري قرن ومهل كري، لكن دبعتين كان قبلين كمد أحد. ترى أنا لو تببرايا مركي لا تببرو والسكسي ديناي. waxaa la isweydiinayaa waxyaabaha ay ka tari karto in ciidamada Soomaaliya ay mar kale awoodaan in ay hantaan ama ay u suura gasho in ay la wareegaan awoodda dalka. sidoo kale waxyaabaha kale saldhiggan isweydiinta ka keeni kara waxa kamid ah in ay jiraan saldhigyo kale oo dawlado kale ay ku tababaraan ciidamada sida Imaaraadka oo kale oo isna ciidan tababara. waxaa jira tababaro kale oo xarada xalane sidoo kale lagu siiyo ciidamada Soomaaliya.